bilaabanaysaa xabaal iyo ninkeed maxaa la yidhi lama kala qarsho xabaal iyo ninkeed loo kala teg hadda ayay arrintu bilaabanaysaa xusuusaadda markii la ishukaansanaya waxaad lahayd aniga soo maaha aniga haddaad i hesho walle nin baad heshay soo mogid gabadhu maxay lahayd walle aniga haddaad i hesho naag baad heshay kor baan kuu qaadayaa intaan riinjiyo badan soo gado ayaan marna ku casayn marna ku madoobeyn marna bunni kaa dhigi warka aad sheegaysa hadda ayaa dhabnimadiisa marka la ogaan doonaa baala xoofta ma taqaana idinka wixii horena maxay ahayd bas hadday xaqiiqadu arrintu imaanaysaa ikhwaani labada qof markii guriga la isu soo geliyo wiilkii iyo gabadha markii guriga la isu soo geliyo maxaa la samaynayaa laba ragcadood baa la tukadaa hadda inteenan haddaan su-aal isweydiino talow yaa laba ragcadood tukaday salafkii bay ka sugnaatay waa arrin fiican gabadh dadkii salafka ka mid ah ayaa nin oday abaa loo soo geliyey guriga markaasuu laba ragcadood bilaabay inuu tukado ayadiina salaaddii bay ku xidhatay mar alla markay ku xidhatay oo uu damca xaggeeda inuu soo aado ayay tiri ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh saaxiibow ma wakti khudba la akhriyaa la joogaa ya bal xaaladdaa u fiirsada ma xaalad khudba la akhriyaa la joogaa ma jumca gabadhii waxay bilowday in khudbo bilowdo ninka waa dhegaystay markay iftitaaxii dhammaysay waxay tidhi nin yahu anu kuma aqaano isku meella kumaana soo korin guri baan ku soo koray adna guri baad ku soo kortay maskax baad haysataa anigana maskax gooniya baan haystaa baaraka allah fiik xaadir maskax baan haystaa adnagana maskax gooniya baad haysataa jazaak allah khayr insha allah waxay tiri nin yahow maxaad jeceshahay ood cuntaa ya cuntada xaggeeda maxaad cuntaa maxaad jecesha maxaad necabta maxaad ka cadhootaa haddaad cadhoota maxaa ku dejiya qaraabadaada ayaad jecesha inay ku yimaadaan qaraabadaada ayaad necabtahay inayna ku imaanin maxaa la yidhahdaa fadhiga magacii isbarasho far ha saarin gabadha adoon baranin far ha saarin gabadha adoon baranin far ha saarin waan ku ogahay inay xamaaso ku hayso laakiin naftaada qabo naftaada celi waayo gadaal baad u baxsan doonta haddii ala yidhaahdo kadib uu ninkii wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo waxanaan cunaa waxanaan cabbaa waxanaa iga xanaajiya waxanaan jeclahay ilaa ay gabadhiina sidoo kale okay way hadda insha allah waa dhib male anaa gacanteedaba saa ku qurux badan inaan igu soo noqonin baan rabaa mala fahmay tacaruf barasho waa in la isbartaa hadda haddaan inteenaan su-aal isweydiino dad badanoo meesha fadhiya reeray leeyihiin dabcan shaki ma leh rag badanoo akhyaaro ahoo weliba reer iyo reero iyo la waa jiraane ma jiraa qof arrinkaas sameeyey ninka sameeyey faa'iidadeedii waa hayaa caawa ninkaas samaynina waxaa weeye kolba lur ma horayso wey dhib ma horayso wey kolba arrin waa jirtaa dhib waa iska jiri karaa isbarashaa la yidhaahdaa carada bas faa'iidada ku jirta maxay tahay laba tusaale bas idinka siinaya cuntada iyo carada bas labadaas tusaale idinka siinaya maalan ninkii wuxuu yidhi haddaan caroodo anigu waxaan jeclahay inaan baxo albaabka ka baxo ragga iyo akhyaarta iyo masaajidka aan tago aniga oo soo nafisay baan kugu soo noqon oo weliba shukulaato kuu wada oo weliba ubax kuu wada oo weliba hadiye kuu wada xanaaqi aan maanta kaa xanaajiyey saasuu ku yidhi weli kuma taabanin laysma taabanin haye su-aashaa su-aal baa la socoto ah waayahay maxaad ku caafimaadaa waxaan ku caafimaadaa inaan layla hadlin oo aan albaabka layga istaagin oo aan waxba lay weydiinin khalaas ninkaasi waa cudurkiisina wuu sheegay muxuu kaloo uu sheegay daawadiisina waa sheegay baaraka allahu fiik
gabadhu hadda marka waa inay dhakhtarad noqotaa marka hadda gabadhu waa dhakhtarad marka waayo labada qof ee isqaba waa inay noqdaan maxay dhakhaatiir isqabtaa oo mid hadduu xanuunsado ka kale waa inuu daaweeyaa warkay u fiirsada culamaa allahi ninkii baa xanaaqay gabadhu marka waa inay farta ka qaadaa waa wax lagu heshiiyey waa wax la yaqaano